salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreedeg waxaa ugu dooro suuqyada hargeysa oo callaysan, dekadda berbere oo buuxda iyo gaasta oo daluucaysa, jeesaska midoobay iyo somalilan oo ku tuuntuunsaday heshiisyo dhowaan la baahin doono, siciid deni oo etoobiya looga yeedhay iyo firdhiye oo bacraarka laga garaacay, xamse cabdi barre oo wambarro ka dhookeeyey oo shadaarood, colkii suudaan oo kaabiga u kulaalaya magaalada wadmadani, sacuudiga oo looga dhaarmaray tartankii qaawanaanta dunida, guxushaagii carreedeg ugu weynaa oo ay ka fekegtay hebelkay fiqi oo lagu malgabay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya, iyo weliba cabiib jimacad oo lagu soo warramay. wararkaasi iyo warar kaloo dheeraad ayaan idahaynahay ku soo dhowaada barnaamijkeen. dawaarle kii u sarreeyey dunta kuuga talaaya, dadku ay u bogeen degdegna kuuga adeega, dadweynow nala eeg dabuubtayda dhegaysta, rooble weeye dawaarku degelkeenna hargeysa, ubuucda weeye dalkeenna, gaar ahaana duleedka dabaqa dheer ee dahabshiil ka horjeedka salaama, dadweynow nala eeg. dawaarlaha rooble waxa uu ku yaallaa kasoo horjeedka salaama iyo waddada dhinaca waqooyi uga baxda mataanaha dahabshiil. haddaba haddii aad iska naqday dharkii lagaga soo daabuli jiray shiinaha iyo bacihii laalaabnaa ee laga soo waaridi jiray dalalka qalaad, iminka waxaad kaga maarmi kartaa dhar dalkaaga lagaaga tolay, lebiskaaga iyo naftaada raali gelin doona. waxaanaad ka helaysaa dawaarlaha rooble oo ay ku joogaan shaqaale firfircoon. waxaanu bulshaweynta reer hargeysa ugu bishaaraynaynaa inaannu qiimo dhimis samaynay annagoo ah dawaarlaha rooble taylor oo ku yaala dahabshiil mataanaha dahabshiil markii xagga hore loo soo yar dhaafo. waxaa dhammaanba hareeraha dhinacyada geesaha gadaalaha goonyaha golaha girgirada gafuurada garbaha iyo gawisyada ceelka hargeysa ee xarunta somalilan si weyn looga dareemaya u diyaargarowga dharaarta ciideed ee haatan fooda inagu soo haysaa. waxaa dhammaantoodba ciyiidhi, gerbis, isriix, turbaaris, tabaatiig, turasho, laandayr, daafadayn, duduuc iyo foognaan, taag iyo tukurle ku jira dadka gaadiidka iyo dhammaanba suuqyada waaweyn ee ceelka hargeysa. dadka ayaa u toogahaya iibsiga iyo gadashada kabaha, huga iyo weliba dharka kala jaadjaadka ama kala meesiga ah ee dharaarta ciideed. sidoo kale dadweynaha ceelka hargeysa ayaa ku jira xulasho, kala doorasho, kuhasho, jamasho iyo weliba laabraac ay ku kala fatiigayaan dharka kabaha iyo dhammaanba alaabooyinka ay naftoodu ka heshay. barbarka kala duulka waxgada ayaa iyaguna ku jira soo jiidasho, qancin, soo dhoweyn, gacmo furnaan, ugolayn, gogolxaadh, hadal dabacsanaan, hawtaar, huriwaa iyo wixii raaca oo ay ku hantiyayaan dadka biyo maanyada ah ee haatan susumaya suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa. waxaa kale iibsiga, isdabamarka, isdhaafka, hirarka, mawjadaha, buraamaynta, isdhaqaadka, buuqa, bulhaanka, bawaagga, isbursiga, gadgadoonka, orta uugaanka, okhliyaridka, tiyaaqa, tiraabta kala duwan, murugga, wax isdhaabsiga iyo weliba wixii raaca ayaa iyaganu xadhkaa goostay. waddooyinka, weeraaraha, wadiiqooyinka, waraqyada, weedhaafaha, jidadka, dhabbooyinka, jirjiiraha, surimada, sakalaha, sowsowyada iyo susuuraha magaalada hargeysa ayaa iyaguna isku shakaalan ama aanay u shicirka loo tuura dhulka u dhacaynin. dhammaanba arrimahan ayaa noqonaya kuwa gabalku uga dhaco waaguna ugu baryo iyaga oo taagan suuqyada magaalada hargeysa. ugu dambayntii arrimahan iyo kuwa la midka ah ayaa iyagana si mugiya madheh looga dareemaya gobollada awdal, gabiley, saaxil, sanaag, togdheer iyo weliba guud ahaanba somalilan, kuwaasoo aad moodo inay gugan ka sarreeyaan guyaashii hore ayna dhaafay. wararka iyaguna naga soo gaadhaya magaala madaxda gobolka saaxil ee berbera ayaa sheegaya inay halkaasi hoganayaan ama yuururaan ama gabalaacaan ama dheegga isku hayaan ama isu tusan yihiin ama aanay bar bannaan lahayn maraakiibta iyo doonyaha kale ologa ee ka yimid dheeggan iyo beri carab. maareeyaha guud ee dekedaha iyo habooyinka somalilan siciid xasan cabdilaahi ayaa tibaaxay inay marsada magaalo xeebeedda berbera haatan la baaxaadegayso amaba ay la legdamayso ama iska toosinayso, sidoo kalena iska tiirinayso rogista iyo rarista damashka iyo alaabooyinka kala duwan ee waxna lagu daabulayo waxna laga hidiidayo maraakiibta tirabeelka ee halkaasi taagan. maareeyaha ayaa sidoo kale sheegay inay haabada magaalada berbera ku soo xidheen maraakiib iyo doonyo la guuraynaya gaastii iyo shidaalkii ugu badnaa ee inta la xasuusto ama la ogyahay gudaha somalilan soo urusha. ganacsatada goofaadhiya saliidda la fidhi khamiiso ayaa soo buuxiyey abxadaha waaweyn ee laga soo buuxiyo gaasta iyo shidaalka laga adeegsado guud ahaanba somalilan. duulka ka ganacsada shidaalka iyo kuwa kaalmaha haysta ee somalilan ayaa si taag iyo tugur leh haatan u soo daabushay gaastan iyo shidaalkan ay la circiirayso haabada weyn ee magaalo xeebeedda gobolka saaxil ee berbera. wararka ayaa sheegaya inay tani hoos u dhigi doonto ama ay guntaa geyn doonto qiimihii shidaalka iyo gaasta la fidhi khamiiso ee somalilan, kaasoo indhawaalaba laxaa sare koray ama aad looga cabanayay.
wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland ayaa iyaduna duulka uska haysta ee Somaliland iyo qolyaha farataagtaaga shidaalka la jaangoyn doonta qiimaha baasiinka dalka Somaliland soo galay dhammaan baahda ku xidhan TAR TV waxaa laga duraamanayaa inay warka labaad kala socdaan TAR Media TV idinkoo welibana waajibkiina ka gudanaya haddii eebba idiin sama ogol yahay weli halkaad nagala socotaan waa TAR TV iyo dowladaha Somaliland iyo jeesadka midoobay ee Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay dawaada ku wada duugteen heshiis gororkiisu yahay wax isdhaafsi dhex mari doona jamhuuriyadda Somaliland iyo jeesadka midoobay sida wararku sheegayaan reeraha Imaaraad la yiri ayaa jamhuuriyadda Somaliland u soo bandhigay qorshe locos oo ay Somaliland ku siinayaan aqoonsi buuxa oo Imaaraadka Carabtu taaranayo jamhuuriyadda Somaliland iyo weliba inay labalaabayaan waxqabadada iyo maalgashiyada ay qolyahaasi ka fuliyaan gudaha Somaliland wararka ayaa sheegaya inay taa beddelkeedana reerahan carbeed xukuumadda madaxweyne biixi ka dacogaysteen saldhig ciidan oo Imaaraadka Carabtu wax kaga daadiyo gudaha dalka Somaliland gaar ahaan xeebaha gobolka saaxil iyo inta kaagdhow heshiiskan oo aan duulka wararka dabsadaa si dhab ah loola wadaagin sidoo kalena aanay labada dal midkoodna ka tibicsiinin ayaa la sheegayaa inay dhowaan si toos ah oo wadajira warbaahinta ugu soo bandhigi doonaan jamhuuriyadda Somaliland iyo weliba jeesadka midoobay ee Imaaraadka Carabtu sida wararku sheegayaan Imaaraadka Carabta ayaa haatan si weyn u yaahinaya sidii uu xeebaha dheeraran ee jamhuuriyadda Somaliland uga heli lahaa meel uu hilka iyo eryada dhigto isla markaana uu ka yegleesho mid ka mid ah saldhigyadiisa ugu ballaaran ee geeska qaaradda guduudan Imaaraadka Carabta ayaa Somaliland u arkaa goob ambalin ah ama halka ugu habboon ee ay geeska qaaradda Afrika ka qabaadi karaan midwaaradiisa dagaal iyo weliba baanihigyadiisa guureeya biyaha badda cas iyo badiirada cadmeed sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa rumaysan inay xeebaha Somaliland yihiin qormacadada ugu mudan ee ay ka haadi karaan fiidmeeraha iyo diyaaradaha dagaalka Imaaraadka Carabtu kaasoo haatan geedeer iyo mid gaabanba u fuusho inuu Somaliland ka codcoto ama ka xoodaansado inay u daba ka dhiibto meel biyo dhanaan leh oo ay ciidamada reeraha ceelka Abu Dubay iska kala ridaan dhinaca kale Imaaraadka Carabta oo hore Somaliland waxqabad uga hirgelin jiray ayaa la sheegayaa inuu jamhuuriyadda Somaliland ugu carab lulay inuu gebi ahaanba laba jibaari doono awlihii iyo horumaradii uu ka canta tabi jiray sida taliya Somaliland ayaa u muuqata mid haatan soo jiidatay indhaha beesha carreed tiyo ay guclo orod iminka ugu soo jiraan dhammaanba dalalka carre mowle oo idil kuwaas oo mid kastaaba u toogahayo inuu midka kale uga hor dheereeyo jamhuuriyaddan dhacda bogcadda iyo barad loo wada bogo ee Somaliland heshiiskan ay kala qayteen xukuumadaha Hargeysa iyo Abu Dubay oo dhalaara kadib la shaacin doono ayaa ku soo beegmaya xilli wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ay ku sugan yihiin sida tan iyo jeesadka midoobay ee Imaaraadka Carabta halkaas oo ay kulamo kula yeesheen qaar ka mid ah maraweynta carbeed ee burka u tuura reeraha looga taliyo ceelka Abu Dubay arrintan ayaa haddii ay midho dhasho noqonaysa guul kale oo u soo hoyatay jamhuuriyadda Somaliland iyo tallaabo kale oo ay qaaday xukuumadda madaxweyne biixi taasoo la ogaa inay heshiisyo hore oo ka la mid ah ula gaadhay dowladda dhexe ee dalka Itoobiya kaasoo ay si weyn u qaada dhigaan idilhaanba warbaahinta iyo dhigilaha wararka dabta ee carreedeg sidoo kalena ay ka qayliyeen wadamo badan oo dhac qaaradda Afrika oo ay ku tun weyn tahay xukuumadda ka bedelisa ceelka xamar iyo inta haysta taasoo iyadoo si weyn uga wasiirsaday waxaa dhex maray Somaliland iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca Caynabahe Macallin Xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka Maxamed Macallin Xirsi Axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagaxdhiga ka dib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaanba culimadii iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebbe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii faahfaahin kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ah ee masaajidka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadbigeena ha dhaafo marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka aragtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aan ku hamiyeynay markii aan ku guulaysanay nimcadan hoose maanta aan joogno markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsanayn oo loo baahan yahay sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal magaaladu waa koraysaa runtii oo magaalo aad ballaaran mujtamaceedu waa ballaaran yahay jimcayaasha qaarkood masaajidku wuxuu ku dhowaan jiray buux buu ku dhowaan jiray hadda taraawiix oo kale dumarka waa ku cidhiidh wuu buuxsamaa waxyaabo fara badan baa soo socda iidaa soo socda waxbarasha insha allahu tacaala aan rajaynayna in looga faa'iidaysto waxaan doonaya in looga faa'iidaysto salaadaha oo waad garan kartaan roobo baa iman kara waxyaabo badan baa iman kara marka runtii baahidii dabaqu way taallaa waana
xaqiiq waanu aragnay in loo baahan yahay marka waxaan doonaynaa walaalaha ka qayb qaatay dhismihii hore masjidka kan in hoos joogno mid gudo jooga iyo mid dibad joogaba waxaan leeyahay walaalayaal man bana lillahi masjidan baa nabiga sallallahu alayhi wasallam bana allahu lahu baytan fil janna ayaynu ku celinaynaa maadaama 12 bilood hore juhdi ku soo jirnay oo juhdigeenaasu ahaa sidii aynu uga midho dhalin lahayn nimcada maanta muuqata ayaa waxaan doonaynaa maanta inaynu walaalihii muxsiniinta ahaa inta halkan joogta mooye inta naga maqan la qaybsanno inay ka soo qayb qaataan qaybta labaad oo waliba inoo bilaabantay oo walaalayaal laba family oo ilaa khayr badan hasi ayaa waxay qaateen dhammaan kharashkii ku baxayay blokeedka xagga sare afarta qiblo blokeedkii ku baxayay marka walaalayaal waa garan kartaan masaajidku kan uu leeyahay waa masaajid labaad waxaan rajaynaynaa marka in aad nala fahantaan oo nagala qayb qaadataan halkan waxaynu fadhinaa xaflad lagu shaacinayo masaajidka dabaqii labaad masaajidka macalin xirsi jaamaca magaalada caynaba iska fadligiisa waa la yaqaanaa axabu lbiqaac ila allahi masaajiduha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay buqadaha ugu jecel yahay masaajid ugu jecel yahay masaajid waxaan u mahad celinayaa dhammaanteen ama dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhismaha masaajidkan hore sida qiimaha badan u dhisay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro runtii maantana waxa weeye qaybtiisii sare sida culimada hore iyo waxa weeye mataqaana wareerkuba ay sheegeen ayaa la shaacinayaa in waxa weeye laga soo qayb qaato ayadahaasoo dhan waxay nagu boorinayaan tacmiirta masaajidka iyo dhisidiisa iyo khayraadka in loo baratamo dee waxaynu halka u joognaa maanta waxa weeye inaynu dib u bilowno masaajidka macalin xirsi dabaqiisii labaad inta ay waryarida waxaanu ku darnay moogin wax weydiino wal ka sheegnaa maxamed aan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante